munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada oo iskugu jira ururada haweenka dhalinyarada iyo oqaal iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Abwaano ayaa loogu dabaaldegay maalinta haweenka adduunka oo ku beegan 8 bisha Maarso waxaana ugu horeyntii munaasabada ka hadashay Adna Cali Axmed oo ah isuduwaha wasaaradda haweenka ee Puntland oo kana warbixisay xuska maalinta haweenka oo munaasabada u astaysan tahay maanta sidaynu wada ogsoonahay maanta waa maalintii 8 Maarso ee xuska maalinta haweenka adduunka هذا كل مسؤول ونفسنا هنا واحد ترى ما أنت وحويان أنا عالم كأردن وحكنا على حسن 6 مارس وكذا أيا وحين ونقول هذا قبل كعين أنا سجنني حفلة قيمة هي قايها بدل أو نقصها قيم قلي أنا وآدي يمكن مهد علينا دمانتين أنت كدمنا وح هذا الذي إسكاك كلا دنبي أقوم يهنا وحجرت إيا برشاد قيبه هذا كلا دوان أيقونا كل هذا حسك مالنت هوانك أو كوبيجان 6 مارسو حقوق ذا أيلا ذا هاي ومالين قيمة أولى دمرك وعن لا هاي دمرو دواء هدرتو أرموا وين بعد اللي الشيء وحال يدنكو قيمة إناتهين دتك كليه ودانيغا كديديا xumaanta iyo waxyaalaha kale u guntan danta dadweynaha iyo danta gobolka iyo danta ciidda iyo dalka iyo calankaba waxaan leeyahay nolosha adduunka lagu nool yahay waxaad ka tihiin number 2 sheekha awliya saxa iyo wali siraadaya geesiga dagaalka u salban aan seeftu ka afbeerin deeqsiga sadku dhiibayada sahal u geynaya suldaan iyo ugaas iyo garaad seeska madaxweyne inay sabar haween wada galeen naasna lagu sooray sinta inay ku qaadanayaan saaga beeninay wixii aan ahayn sharciga islaamka idinkuna wixii ku sharciga islaamka wax u dhimaya idinkuna ka joogo sharciga islaamka ilaahay inoo soo dejiyay wixii wax u dhimaya ee aan daruuri ku jirin adduun iyo aakhira midna aku talaabsanina wixii adduunka la idinku ogol yahay wax qabadana way idinku garab taaganahay waana mahadsantihiin shirkuna way ruuxay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh si kastaba ahaatee munaasabadan lagu xuseeyay 8 Maarso oo ku beegan maalinta haweenka ayaa sidoo kalena looga dabaaldegay gobolada dalka Soomaaliya Maxamed Cali Bile telefishinka qaranka Soomaaliya Buuhoodle.